deegaamada axmaarada iyo tigreega waxaa saacadihii la soo dhaafay cirka isku sii shareeray dhaqdhaqaaqyada military ee ay iskaga soo horjeedaan labada dhinaca dhammaanba magaalooyinka waaweyn ee deegaamada tigreega iyo axmaarada ayaa waxaa ka baxaya ciidamo aad u tiro badan waxaana ciidamada lagu qaadayaa dhammaanba gaadiidka kala duwan ee ku sugan magaalooyinkaasi haddii ay ahaan lahayd basaska baabuurta isjiidyada ah iyo xitaa gaadiidka yaryar ee aan loogu talagelin qaadista dadka iyo rakaabka tirada badan kumanaan ciidamo ah ayaa waxa ay ka baxayeen saacadihii la soo dhaafay magaalooyinka kala duwan ee deegaanka axmaarada halkanina waa magaalada Gondar ee deegaanka axmaarada oo ay ka baxayaan kumanaan ciidamo ah oo lagu qaadayo basaska iyo waliba gaadiidka kala duwan waxaana sagootinaya oo jidadka u taagan kumanaan dhalinyaro ah oo iyagu ku faraxsan bixitaanka ciidamada ku socda jiida hore ee dagaalka shacabka axmaarada ayaa waxa ay isu diyaarinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen gulufka dagaal ee ay indhowaalaba ku hanjabayeen kooxda TPLF waxaana ciidamada maamulka axmaarada oo ay kaabayaan ciidanka militariga iyo maleeshiyaadka kala duwan ee qoomiyadda axmaaradu ay haatan u dareereen goobaha dagaalka si ay uga hortagaan maleeshiyaadka kooxda TPLF maamulka axmaarada ayaa waxaa dhinacooda ay sheegeen in aanay marnaba banayn doonin magaalooyinka kala duwan iyo waliba degmooyinka ay ku muransan yihiin maamulada axmaarada iyo tigreega waxayna sheegeen in halkaasi ay ku dhiman doonaan maadaama dhulkaasi uu ahaa dhul ay horay iyagu u lahaayeen kooxda TPLFna ay isku dayayso si indhacadaysa in ay mar kale uga qaadato degmooyinka raaya walqayta iyo deegaamada ku xiran ayaa waxaa haatan ay noqdeen ubuucda khilaafka ka taagan amaba ka dhex aloosan qoomiyadaha axmaarada iyo tigreega iyada oo tigreegu ay ku hanjabayaan in aanay marnaba aqbali doonin in ay ka tanaasulaan deegaamadaasi oo ay sheegeen in ay yihiin kuwa tigreegu ay leeyihiin axmaarada ayaa dhankeeda iyaduna waxa ay ku doodaysaa in deegaamadaasi walqayta raaya iyo waliba deegaamada kale dhammaantoodba ay yihiin kuwa ay dadka axmaarada ahi leeyihiin sidaas daraaddeedna ay nafta duldhigayaan aysanna jirin sabab ay uga baxaan arrintaasina waxa ay noqotay mid marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareeraysa mas-uul u hadlay maamulka axmaarada ayaa waxa uu ku hanjabay in ay noqon doonaan deegaamadaasi xabaalihii ay ku aasi lahaayeen ciidamada tigreega waxaana ay sheegeen in haatan shacab ciidan iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta deegaanka axmaaradu ay u darban yihiin sidii ay isaga caabin lahaayeen ugana hortagi lahaayeen ciidamada iyo maleeshiyaadka kala duwan ee qoomiyadda tigreega ee kooxda TPLF ay doonayso in ay halkaasi ka dagaalamaan lana wareegaan dhammaanba deegaamadaasi dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ayaan iyadoo xiisadaha soo kordhay ka hadlin waxaana dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya mar walba ay muujinaysaa in ay diyaar u tahay sidii ay uga hortagi lahayd daandaansiga iyo waliba isku dayada kooxda TPLF ay ku doonayso in ay ku soo gasho gudaha deegaanka axmaarada halkanina waa magaalada Maqale ee caasimadda deegaanka tigreega waxaa ka baxaya boqolaal gaari oo isugu jira gaadiidka noocyadooda kala duwan gaar ahaan gaadiidka xamuulka ee isjiidyada kuwaasi oo ku wajahan goobaha dagaalka iyo furimaha colaadu ay ka ogan tahay kumanaan shacabka tigreega ah ayaa iyaguna dhinacooda waxa ay muujinayaan sida ay ula dhacsan yihiin ooguna faraxsan yihiin ciidamadaasi ku wajahan goobaha dagaalka waana qayb ka mid ah dhiirigelinta abaabulka iyo waliba guubaabinta ciidamada maleeshiyaadka ah ee qoomiyadda tigreega kuwaasi oo haatan iyagu isku dayaya gebi ahaanba in ay mar kale la wareegaan dhulka tigreega iyo waliba deegaamadii horay ay ugu darsadeen dhulkooda marka laga yimaado ciidanka kooxda TPLF sidoo kale shacabka tigreega ayaa dhinacooda iyaguna waxa ay muujinayaan taageerada ay la garab taagan yihiin ciidanka kooxdaasi waxaana ciidamada TDF ta ee tigreegu haatan ay u muuqdaan
kuwa isku dayaya inay gebi ahaanba deegaanka Tigreega dib ooga saaraan ciidamada kala duwan ee ku sugan gaar ahaan ciidamada dalka Eritrea iyo ciidanka maamulka Axmaarada kuwaasi oo haatan noqday kuwa kaliya ee ay goobaha dagaalka isku wajahayaan maleeshiyaadka kala duwan ee maamulka Tigreega iyo waliba ciidanka loogu magac daray TDF ayaa waxa haatan ay ku sugan yihiin dhammaanba magaalooyinka kala duwan ee deegaanka Tigreega marka laga reebo magaalooyinka muranku uu ka taagan yahay ee ciidamada dalkaasi Eritrea ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale dhulka lagu muransan yahay ee iyagana haatan uu ku sugan yahay ciidamada maamulka Axmaarada kuwaasi oo dhinacooda ku hanjabaya haba yaraatee in aanay ka bixi doonin magaalooyinkaasi mas'uuliyiinta hogaaminaya maleeshiyaadka qoomiyadda Tigreega iyo ciidanka TDF ayaa waxa ay wacad ku mareen in ay soo celin doonaan dhammaanba dhulka Tigreega ilaa iyo haatan dhaqdhaqaaqyada military iyo abaabulka ayaa waxa uu yahay waxa ugu weyn ee ka muuqda guud ahaanba deegaanka Tigreega iyada oo sidoo kalena deegaanka Axmaarada waxa kaliya ee ka socda uu yahay abaabulka ciidan iyo sidii kumanaan ciidamo loogu diri lahaa goobaha laga cabsi qabo in ay ka soo galaan maleeshiyaadka kooxda TPLF isku soo wada duubay xaaladda guud ee dalkaasi Itoobiya gaar ahaan gobolada waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxay u muuqdaan kuwa colaad mahurta ah waxaana labada dhinac ee iyagu haatan ku loolamaya mid waliba ay diyaarisay cududda iyo ciidankii ugu ballaadhnaa ee ay midda kala hortagi lahayd waxaana saacad kasta bilaaban kara dagaalka u dhaxeeya qoomiyadaha Axmaarada iyo Tigreega kuwaasi oo ah kuwa haatan iyagu isu biratumanaya dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya horay ra'iisul wasaaraheedu waxa uu sheegay in ay garab istaagi doonaan ciidanka dowladda federaalka ahi ciidamada maamulka Axmaarada iyo waliba maleeshiyaadka kala duwan ee qoomiyadda Axmaarada ilaa iyo haatan dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ciidamo muuqda oo ma aanay dirin halkaasi balse ciidamadii ka soo rugmaday gudaha deegaanka Tigreega ayaa dhammaantoodba waxa ay ku sugan yihiin magaalooyinka kala duwan ee deegaanka Axmaarada kuwaasi oo lagu wado in ay qayb ka noqdaan difaaca rasmiga ah ee ka hortagaya ciidamada kooxda TPLF